السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن صاحب بيال هالكني وأحمد بقية برتان كلنا هاي يوتيوب كجمعة مبارك بش مانتا وصدن وبش أبريل سنة دلبادة كن يقول تاكا ورر كل الدوان أيام وركينا مانتا كفلان قين دونا هدو أبها ودليل هذا وقدر كوجمي هم سووا حكوا يقولنا بقولي كتكي إيرو مركز لسيني فاميليا دا أو أن وسارد شقالها إدار كان جرمالكا أما وسارد شقالها يشقالوها أو ربحين عصوب كسو سارتي أو أرنتا سكها هذا يسو isbedel markaasi aan hore loo ogeyn oo hadda ay shaacisay iyo systemka markaasi lacagtaas lagu bixinayo ayaan barnaamijkeenan maanta ku falanqeyn doonaa. Sidoo kale warar kala duwan iyo dhacdooyinkii ka dhacay dalka Jarmalka maanta ayaan eegi doonaa. Sidoo kale maalinta bariya oo bisha ay kow tahay ayaan lafteena dhacdooyinka dhici kara ama la saadaalinayo iyo waxyaabaha dhacay bari aan halkan idinku falanqeyn doonaa. Marka la soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar channelkeena Axmed Baqaye haddaad hore nooga mid ahayd marka la soo dhawo dhanka like-ta idinka le waaye hadduu muuqaalkan ku cajabiyo dareenkaaga noogu muuji dhanka like-ta oo qof kasta oo muuqaalkan cajabiyo like si aan u dareeno in muuqaalkan idin cajabiyay in kale. Okay, wararkeena ayaan bilaaban doonaa. Marka hore coronavirus iyo 24 saac ee u dambeeyay waxaa la diiwaan geliyay 4,329 kiis oo cusub waxaana geeriyooday 306 ruux. isku celcelis boqolka kun ee qof ee meelowda deganba dadka Jarmalka oo dhan marka la eego waxa uu ku dhacay 153.4. Okay, maalinta bariya waa maalin sabtiya waa kooda bisha shanaad sanada 2021 waxay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha caalamka ama adduunka oo aan cid shaqaynaysa bari ma jirto. awalba bandow ayaan ku jirnay laakiin waxa la sii gali doonaa bandow taasi ka duwan oo supermarketada iyo meel kasta shaqaalaha oo dhan baa la fasixi doonaa oo cid maalinta bariya shaqayn doonta ma jirto. Marka hadda waxyaabo aad uga baahan tahay suuqa oo muhiim ay jiraan galabta soo dhamayso inkasta saxmadi jirto oo dad badan isku dayayaan inay faylar u galaan supermarketada oo marka horeba dad badan aan loo ogoleyn inay galaan laakiin isku day inaad wixii muhiim ku ah aad hore u soo qabsatid labada maalmood oo u dambeeyay baan maalinta isniinta bisha saddexda bisha ku beegan tahay nolosha caadi ay ku soo laaban doontaa dabcan sida ay maanta tahay oo kale ay ku soo noqonaysaa bandowga lagama baxayo laakiin waxyaabaha aad u baahan tahay marka waad heli karaysaa waa tahay. sidoo kale maalinta bariya ee sabtida waxa dhici doona mudaharaado ay dhigayaan dadka shaqaalaha ah sidoo kale mudaharaado cunsuriyiinta ay dhigi karaan dadka coronavirus soo horjeeda iyo waliba mudaharaado kala duwan oo markaasi dad kala aragtiya ah ay dhigi doonaan oo bari saxmad badan ayaa jiri karta haddii aad suuqa u baxaysid ka taxadar sidoo kale ha uba bixi maayaan ku oran lahaa sababta saameynteeda ay leedahay. Okay, bari intaas aan kaga gudubno aan bal eegno wararkeena waaweyn kadibna warka muhiimka aan soo laabano. xukuumadda dalka Jarmalka ayaa waxa ay bilaabaysaa qorshe ay qaxoontiga iyo soo galootiga dalkan Jarmalka ku dhaqan ay ku wacyigelinayso isla markaasina ay ku dhiirigelinayso qaadashada tallaalka coronavirus. sida xukuumaddu sheegtay qorshahan waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan dadka soo galootiga ah iyo waliba dadka danyarta ah ee aan hantoodu badnayn. waxaa ka qayb qaadan doona qorshahan la doonayo in lagu dhiirigeliyo dadku inay qaataan tallaalka wadaadada diimaha kala duwan ee dadka ajaanibta dalka Jarmalka ku dhaqani ay markaasi haystaan. sidoo kale luuqado kala duwan ayaa laftooda lagu turjumi doonaa oo dadka loogu soo bandhigi doonaa laguna dhiirigelin doonaa inay qaataan tallaalka. Okay, qodobkaas intaas kaga gudubna waxaan eegi doonaa qodob kale isla tallaalka ku saabsan. shirkadda BioNTech ayaa waxay codsi u gudbisay hay'adda u qaabilsan dhanka tallaalada midowga Yurub ee magaceeda loo soo gaabiyo EMA. hay'addaasi ayaa waxay ku codsatay in u ogolaato in ay caruurta tallaasho maadaama hay'adda shirkadda BioNTech ee dalka Jarmalka ku taala ay soo saartay tallaal markaasi lagu tallaalayo caruurta. qorshahaasi ayay doonaysaa markaasi in hay'adda EMA ay u dhiirigeli ay markaasi EMA ay u ogolaato in caruurta dalkan Jarmalka ku dhaqan la tallaalo. haddii ay u hirgasho waan eegi doonaa iyo haddii kale adiga aragti ahaan sidaad u aragtaa in caruurta la tallaalo iyo in kale fakarkaaga dhanka commentiga noogu reeb. qodob kale muhiim ayaan eegi doonaa. shirkadda la yiraahdo Amazon aad ogtihiin alaabooyinka iibisa inta badan dhanka online-ka wax laga iibsado ayaa noqotay shirkadda kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee aad iyo aadka uga faa'iiday bandowga ama xilligan lagu jiro coronavirus. waxa la leeyahay lacag aad u fara badan ayay ka samaysay xilligan bandowga hadda lagu jiro. sidoo kale mulkiilaha shirkaddan iska leh ayaa noqday ninka ugu taajirsan caalamka oo kaalinta koowaad muddo kula tartamayay ninka markaasi iska leh shirkadda la yiraahdo Tesla ee markaasi soo saarta
gaadiidka korontada ku shaqeeya. ninka Tesla iska leh iyo ninka Amazon iska leh ayaa maalmihii u dambeeyay ama muddooyinkii u dambeeyay aad ugu tartamayay takaalinta koowaad ee qofka dunida ugu taajirsan. iminka waxa kaalintaas la wareegay ninka Amazon leh. Tesla laftiisu ninka leh dab yar shidi maayo oo aad ayay labadaas nin isu daba socdaan. adigu ka Soomaali ahaan ama hadda Soomaalida oo kaliya eegtid yes leedahay uu ka faa'iiday xilliga coronavirus lagu jiray ama bandowga. dhanka commentiga noogu soo qor qofkaas leedahay uu ka faa'iiday. okay iminka balanaagna 150 kan inuu wareeriyay 150 kan ku ka dhacay. shalay waa idin sheegay qaabka u soo dhacayso. asxaab fara badan ayaa commentiga igu soo qortay oo noo sheegay in lacagtaas u soo dhacday. marka ma hubo inay u soo dhacday in kale taas iyaga ayay noo sheegi karaa. laakiin anigu waxaa idin sheegaya un qaabka ay ku soo dhacayso iyo systemka ay u soo dhacayso iyo waqtiga ay soo dhacayso. wasaaradda shaqada ee dalkan Jarmalka ayaa boggooda rasmiga ah ay ku leedahay internetka waxay ku shaacisay nidaamka ay lacagtan ku soo dhacayso. marka hore lacagtan waxa weeye 150 euro loogu talagalay dadka caydha qaata, tusaale ahaan dadka jobsterka ku jira, dadka socialka ku jira iyo dadka markaas iyaga meelaha kala caydha ka qaata. 150 euro dadkaas ayaa la siinayaa. sidoo kale waxaa la siin doonaa ilmo kasta oo kindergarten qaata ama familiyankaas ka tirsan. familiyankaas dadka Jarmalka jooga waa garanayaan, laakiin dadka aan joogin Jarmalka aan joogin haddaan u sharaxo waxa weeye hay'ad gaar ah oo lacag siisa caruurta markaasi yar iyo waaweynba. adigu caruur oo dhan lacagta siisa. haddii aad ilmo yar tahay 18 jir ka yar tahay yugan amti aad ku jirtid ama aan ku jirin hooyada la nooshahay, haddii aabbaha yahay taajirka waddanka ugu weyn iyo haddii kaleba xaq ayaad u leedahay inaad lacagtaasi qaadatid. ilmo kastana xaq ayuu leeyahay. waa lacag yar oo 190 waxyaabo noocaasa. markuu hal ilmood yahay, markuu laba ilmood yahay ay kasii yaro kordhayso, marka saddex yihiin ay kasii yaro kordhayso, marba 10 euro 20 euro waxyaabo noocaasa markaas ay ku kordhayaan oo ilmo kasta xaq leeyahay. maaha lacag la siiyo dadka qaxoontiga ah, maaha lacag la siiyo dadka faqiirka ah. waa lacag uu xaq u leeyahay ilmo kasta oo markaasi dalka Jarmalka ku dhashay. waa caruur markaasi lacagta caruurta ah oo haddaad shaqaysid iyo haddaan shaqaynba ilmahaagu uu xaq u leeyahay. taas waa marka hay'ad familiyankaas la yiraahdo ayaa lacagtaasi bixisa. magaceedana kindergarten baa la yiraahdaa. geldi waa lacag adigu kingdom money, children money bay noqonaysaa af Ingiriisi loo turjumo. marka taas weeye qofkii markaasi doonaya inuu fahmo. takalena waa lacagta dadka la siinay. marka tacaruurtiyadu waxay soo dhacaysaa tan tacaruurtiyadu horseeyada fudud saad u fahmaysaan. taasi waxay soo dhacaysaa marka ilmahaaga lacagta loo soo diro waqti u dhow. haddii ilmahaaga numberka u dambeeya lacagta numberada ku qaata lacagta numberka u dambeeya eber ama ilaa 2 ilaa 1 numberada u horeeya uu yahay bisha bilowgeeda ku soo dhacaysaa. marka lacagtaadii caadiga ahaa lama soo raacinayo, markasta way ka dambeynaysaa ama isku mar bay soo dhacayaan, laakiin laba mar bay soo kala dhacayaan oo lacag jumladu isku xidhan noqon maayaan. laba lacagood bay noqonayaan. marka hadday bisha kala barkeeda kusoo dhici jirtay kindergarten bisha kala barkeeda kusoo dhacaysaa. hadday bisha dhamaadkeeda kusoo dhacaysa bisha dhamaadkeeda kusoo dhacaysa. marka bal tan kale aan soo noqono. tan waxaa la siinayaa 3 group. waa dadka job centerka ku jira, dadka socialka ku jira iyo dadka markaasi qaxoontinimada dalbaday. waa saddexdaa dad. su'aalo badan arrintaa ku saabsan bay soo weydiisaan. saddexdaa qof weeye. gabadh bay soo weydiisay saygayga ii shaqeeya, anigu ma shaqeeyo. marka saygayga lacagtana siiya, caydhna ma qaadano. marka lacagta ma la siinaya? jawaabta su'aashaasi waa maya. adada caydha qaadatid oo kaliya ayaa lagu siinaya. haddaad shaqaysatid, hadduu ninkaaga kuu shaqeeyo adiguna aad shaqaysan, familigaas wuu shaqaystaa wey. laakiin qorshe kale ayaa la wadaa oo familiyada markaasi family kasta lacag lagu siinayo. taasi wasaaradda qoyska ayaa soo bandhigtay. dhowaan ayaa macquula in la hirgeliyo. taana waa la socon doonaa insha Allah. laakiin tani ma qusayso familiyada, waxay qusaysaa dadka caydha qaata. family ahow, qof ahow, 20 qof ahow, adiga leewaay. okay taasi intaas weeye. marka warbixintan ay shaacisay wasaaradda shaqaalaha ee dalka Jarmalka maanta ay boggooda ku shaacisay waxay ku sheegtay lacagtaasi inay bilaabmi doonto 10ka bisha shanaad ama 10ka bisha May ay si rasmi ah u bilaabmi doonto. marka waa lacagta dadka jobsterka ku jira, socialka ku jira, dadka sharci qaxoontinimada dalbaday la siinayo weeye. tan 10ka bisha bilaabmaysa. mid kale ogaada, lacagtani marna lama socoto lacagta kale caadiga lagu soo diro. waa lacag ka duwan, isku marna ma soo dhacayaan. marka lacagta lagu soo dirayo ka hor ogeysiis ayaa lagu soo siinayaa. waxa macquul ah hadda bandow ayaa lagu jiraa. marka brief lagu soo diro ama waraaq lagu soo diro waxa laga yaabaa inay
waqtigeedu dib u yara dhaco ama ay waqti qaadato marka hadday dib kaaga yara dhacdo dhibaato ma laha oo dib u yara dhici kartaa waxaa laga yaabaa in waraaqda iyo lacagta inta waraaqda maanta lagu soo diro lacagtana beriyo kale lagu soo diro waraaqdu dambayso lacagtu soo horeyso way dhici kartaa laakiin waraaqda wax muhiima kuma qorna wax ku qoran keliya lacagtu intay tahay iyo inta qof aad tihiin iyo waxyaaba noocaasa ku qoran taasi waa 10ka bisha ayay soo dhacaysaa waxa laga yaabaa in 10ka bisha dadka ka hor ay usoo dhacdo qaar ilaa 8 bisha 7 bisha qaarkoodna ay usoo dhacdo bisha dhammaadkeeda qaar usoo dhacdo bisha 20keeda aduu si ay u kala dambayso marba waxay ku xiran tahay marba lacagta la awoodo in la soo fasaxo laakiin sida wasaaraddu shaacisay caadiyan sharciyan waxay soo baxaysaa xafiiska ka soo baxaysaa toos u bilaabmaysaa 10ka bisha shanaad marka waxa ka dhigan tahay ilaa hadda cid qaadatay ma jirto haddaad lacagta caadiga ku soo dhacday lacagtani kulama socon karto oo lacagta ishtaadka ku soo diro jumlad ahaan ma soo raacayso waa lacag ka madax bannaan oo ka duwan oo system gaar ah u soo baxaysa taasi waa taa marka waad fahanteen baan meenaya sharaxaad badan uma baahna 10ka bisha shanaad bay toos u bilaabmaysaa haddaan dib u yara eego kindergarten oo kale waxyaabaha doonaysa inaad ku ogaato wax ka mid ah lacagta kindergarten oo kale caruurta 2 jeer lama siinayo hal mar ayaa la siinayaa markaan ku leeyahay hal mar baa la siinayaa waxa dadka qaar baa u maleynaya qof baa 2 meelood wax ka qaata waxaa jira caruur kindergarten qaata sidoo kale jobsterkana lacag ka qaata 17 jir ayaa jira iskuulla dhigta oo jobsterka ku jira ama 18 jir kindergarten qaata 19 jir kindergarten qaata wax barta kindergarten qaata jobsterkuna caawimo dheeraad ah siiyo systemyo noocaas jira oo lacaga jobster qofka ugu soo diro marka hadduu jobster waxa jira hooyooyin kindergarten qaata caruurtoodana jobsterku lacag dheeraad ah siiyo kuwaas oo kale jobsterkuna ma siinayo ilmaha kindergarten ma siinayo hal mid un baa siinaya ama kindergarten siinaya ama jobsterka hadduu mid siiyo ka kale ma siinayo tan iyo duqaya taasi waa taa ta kalena waa tii caadiga ahayd qof kasta oo cayr qaata la siinayay laakiin lacagtaadii caydha lama soconayso way ka duwanaanaysaa waqti gaar ah kusoo dhacaysa waxaan filayaa intaan idin faahsiin karaya inaan faahsiiyo wax kaloo muhiimaddu waxay tahay labada lacagoodba bisha shanaad bay soo dhacayaan bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda intaa u dhaxaysa ayay labaduba soo dhacayaan waa bisha shanaad oo keliya bisha lixaad sooma dhacayaan bisha afraadna sooma dhacayaan bisha shanaad ayay soo dhacayaan waad fahanteen ma filayaa waana warbixintii u dambeysay warkeena maanta intaas ayaa idinku macasalaameynaya intaynu mar kale iyo meel kale ku kulmi doono walaalkiin axmed baqayo idin leh